ciidamada socdaalka ee waddanka Thailand ayaa sheegay in gabadh 18 jir ah oo ka baxsatay qoyskooda oo Sacuudi ah horaantii toddobaadkan ay haatan ka baxday madaarka magaalada Bangkok kaasoo ay ku xayirneyd isla markaana ay gacanta ku hayso hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga. saraakiisha socdaalku waxa ay sheegeen inay isku dayeen in Raxaaf Maxamed Al-Qunuun oo 18 jir ay ku celiyaan waddanka Kuwait oo qoyskoodu ay degan yihiin, laakiin waa ay diiday inay raacdo diyaaradda oo waxa ay isku soo xidhay maqsin ku yaala hodheel ku dhex yaala madaarkaasi magaalada Bangkok, waxaana ay sheegtay in qoyskoodu ay qudha ka jari doonaan haddii ay noqoto maadaama ay islaamka ka baxday. Raxaaf oo wakaaladda wararka ee Reuters la hadashay ayaa waxa ay tidhi walaalada iyo qoyskayga iyo saraakiil safaaradda Sacuudiga ka socda ayaa igu sugaya waddankaasi Kuwait. noloshaydu halis bay ku jirtaa, waxayna qoyskaygu igu hanjaban inay qudha iga jarayaan, laakiin ehelkoodu weli kama uusan hadlin waxa ay ku tiraabtay inantaasi. ururada xuquuqal insaanka u dooda oo ay ku jirto Human Rights Watch ayaa walaac weyn ka muujiyay duruufta Raxaaf oo doonaysa inay Thailand ka sii raacdo diyaarad kale oo Australia tagaysay halkaas oo ay rajaynaysay inay magangelyo ka dalbato. Raxaaf Maxamed Al-Qunuun ayaa xaaladda haysata waxa ay dadka kula wadaagtay barta Twitterka, waxaana ay tidhi maadaama aanan waxba gacanta ku haynin waxaan haatan doonayaa inaan idinla wadaago magacayga dhabta ah iyo dhammaan xogtayda. fariin kale ayaa waxa ay ku tidhi waxaan ka cabsanayaa in qoyskaygu ay dili doonaan. kiiskan ayaa waxa uu eg yahay kiiska haweeney kale oo Sacuudi ah taasoo bishii Abriil ee 2017 ku sii socotay waddanka Australia. Diina Cali Lasluum oo 24 jir ayaa ka soo kicitay waddanka Kuwait iyada oo ku sii hakatay dalka Philippines, hase yeeshee waxaa dib loogu soo celiyay waddanka Sacuudi Arabia iyada oo qoyskeeda ay ka soo dhoofiyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Manila, waxaana ay isticmaashay telefoonka qof Kanada u dhashay oo dalxiis ah si ay fariin u dirto iyo muuqaal la soo dhigay barta Twitterka iyada oo leh qoyska ayay suurtagal tahay inay dilaan. sida uu xaalkeedu yahay ma jirto cid wax wara ka haysatan iyo markii ay gaartay waddanka Sacuudi Arabia. Axmed, TAMREYSE, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.